بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد waxaan idin leeyahay dhamaantiina Ramadaan Kariim. qof kasta meeshuu joogo iyo meeshuu ku soomayo waxaan leeyahay Ilaahay Ramadaanka inaga aqbalo wanaaga iyo fadliga Ramadaankana udurka iyo xaaladooyinka dhibaataysan ee murugaysan ee dalkeena haysto inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga qaado baan rajaynaynaa. intaan haddaan ka sii tago barnaamijkeena maanta aan ku wacyigelinayno xaaladda ama cudurka coronavirus ujeedkiisu ma ahan in aan ku kordhino bulshada culeyska haysto ee cabsida iyo waxyaabo badan la sii daalaa dhicayso inaan culeys iyo cabsi u sii kordhino balse waxaan rabnaa in wacyiga iyo taxadirka bulshadeed ee loo baahan yahay aan kordhino sidoo kaleeto ma rabno in halkan aan isugu sheegno waxyaabo badan ama waxyaabo aan gacanteena ku jirin waxaan rabnaa inaan istusno keli ah maxaa gacanteena ku jiro anaga ka bulsho ahaan maxaa gacanteena ku jiro aan sameyn karna inaan istusno hadafka saddexaad waxaan rabnaa qof kasta oo barnaamijka ka soo qayb galo magaaladu raba ha joogo meeshuu raba ha joogo in inta ay hadalkiisa iyo gacantiisa iyo warkiisa uu gaarayo in warka uu gaarsiiyo aan loo kala harin fariimahan iyo cudurkan la dagaalankiisa iyo taxadirka bulshadeed ee ay tahay inaan qaadano aan loo kala harin marka waxaan rabaa marka hore inaan idinla wadaago maabka ama khariirad yar aan raaci doono inta barnaamijkeenu inoo socdo insha Allah waqtina waan isu heli doonaa oo basa uma badin doono marka hore waxaan rabaa taariikh kooban inaan iska ogaano aad u kooban cudurrada faafa maxay yihiin yani adduunyada hore ma loo soo maray qaabno ee loo soo maray sidoo kaleeto maxay tahay sababta ay tahay in cudurkan aan u aragno xaalad jiddi ah oo taagan oo si run ah inaan u qaadano ay tahay bulshadeeni ay wax dhab ah inay u aragto ay tahay cudurkan ma leeyahay calaamado u gaar ah oo lagu garan karayo si keligiisa u gaar ah ma jiraan inaan sidoo kale aan isla ogaano ka bulsho ahaan maxaa gacanteena ku jiro aan sameyn karnaa bulshada Soomaaliyeed aan nahay maxaa gacanteena ku jiro aan sameyn karnaa ka hortagan aan ku talin doono ama aan sameyn doono muxuu faa'iido leeyahay ilaa goormuu socon doona cudurkan intaas aan ka hadli doono hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina waafajiyo qodobkeeni ugu horeeyay aan ku horeeynayno waxa waay cudurrada faafa normally yani dunida way ka soo jireen weligeedna way jireen wayna jiri doonaan gaar ahaan markay yihiin cudur virus ama cudur sidaha viruska ah markuu xaaladdu sababayo xaddiga oo cudurku ku faafo aad ayuu u kordhayaa tusaalooyin haddaan soo qaadano taariikhda markii ay ahayd 540 dunida waxaa ka dilaacay daacuun ayaa ka dilaacay oo ku dhawaad 25 ilaa 50 milyan oo dadka dunida joogay xilligaas oo ya garaafistay ama dilay xilliga marka la joogay 1347 sidoo kale dunida waxa ka dilaacay cudur la dhihi jiray yani geeridii madoobeed ama black death kaas oo sidoo kale asigana ku dhawaad 200 oo milyan oo bani aadan ah garaafistay oo dhibaateeyay dhamaadkii qarnigii la soo dhaafay 1918 ilaa 1920 inta u dhaxaysay cudur waxa jiray asigana la yiraahdo yani influenza-gii ama hergebkii Spain oo asiguna garaafaystay ku dhawaad dad 50 ilaa 100 milyan oo qof gaarayo normally cudurradan tirada badan ee dunida ku soo dhacayo markasta muddada si loo joogo marba iska dilaacaan tusaalahan cudurradan intooda badan qaarkood waxa way cudurro xayawaanaadka ka soo gudbo oo bani aadanka u gudbo waaye oo la yiraahdo zoonotic diseases ilaa 200 cudur bay gaarayaan waxa kamid ah hergebkan ama duraygan oo doofaarka ku dhaco duraygan shimbiraha iyo cudurradan kale oo sanbabada ama xaaladda daran ee sanbabada ku dhacdo oo SARS groupka loo yaqaano cudurradan dhan waxa way dunida way jireen wayna jiri doonaan balse maxay tahay mas'uuliyadda wadareed ee bani aadanka ay tahay inuu ka qaato taas ayaa ugu muhiimsan oo anagana aan qayb ka nahay tusaalahan xaalad hadda aan joogno coronavirus waxaan ognahay waa cudur ama xaalad ku dhacda sanbabka inta badan dhibaatooyin badan u geysata oo ka soo bilaabatay wadankaas China ayay ka soo bilaabatay dhamaadkii sanadkii hore ilaa bishii shanaad ayaa hadda la sii maray ama bishii lixaad baa la sii agaagaynaya oo xaaladdu ay taagan tahay marka maxay tahay sababta ay tahay in aniga arintan cudurkan aan u qaadano in cudur jiddi ah uu yahay xaalad rasmi ah in ay tahay waxaan ognahay tirada hadda ilaa hadda uu garaafaystay inay 3 milyan ay kor u dhaaftay cudurka uu ku dhacay uuna dilay sidoo kale dad ku dhow 230 qof 30 kun oo qof wax sii dhaafay inuu dilay maalin kastana ku dhawaad 70 ilaa 100 kun oo qof ayuu ku dhacayaa dunida haddii qofka uu isku dayo inuu xaaladan ama cudurkan uu inkiro ama uu dhaho ma jiro taasi micnaheedu waxay noqon kartaa qof inkiray geeridana ma jirto
waa u jeednaa dadka ku dhamaanayo waa u jeednaa dadka u dhibaatoobayo waa u jeednaa xaaladaha dunida ka taagan intaas oo dawladood 200 iyo 90 kaba 300 ku dhawaad oo dal oo dhan dhibaatadii yani koronaha aad ayuu saameeyay wuu gaaray marka anaga ka bulsho ahaan waxaan ku qasbanahay qof kasta oo maxaan ku yiraahdaa caaqil ah wax fahmayo in xaaladii uu fahmo oo ay gaarto oo sidoo kale xaalad asiga gurigiisa shakhsiyadiisa khusayso oo kale sidoo ula macaamili lahaa ula macaamilo kii ayadu cudurka aysan gaarin oo agoonyahana ama ilmihii ama ishii uu bulshada ay wax ku arki lahayn sidoo kale bulshada inuu gaarsiyo ayaa waajib ay ku tahay marka xaaladan cudurkan waa xaalad taagan oo u wada jeedno dhamaanteen mas'uuliyad inaga wada saaran tahay oo in ay tahay in dadkan sidii looga boodi lahaa ama looga kici lahaa يعني أن مسؤولية إسكسارنو جود أهان يعني أنت أسأقوم مهمسن علامة عذر كان وليه هي عفمات كدتك يقانو وحي يراهدو differential diagnosis ayaa jiro xaalad ama sifo u gaar ah cudurka coronavirus u gaar ah kaligiis ay la gaar tahay la yiraahdo ma jirto يعني guud ahaan xaaladka kale ama cuduradii kale ayuu sifooyin la wadaaga haday qandho tahay haday qunfac tahay haday neefta oo ku dhibta ay tahay ama bukaanka dhibta ay tahay hadii maxaan ku yiraahdaa qarqar oo qofka jirkiisa uu qarqaray ay tahay hadii daal oo murqaha ay daalayaan ay tahay intaas xaaladooyinkaas oo dhan wuxuu la wadaaga cudurada kale ayuu la wadaaga balse asiga wuxuu uga duwan yahay sifada koowaad ee cudurkan uga duwan yahay kow yani waxa kamid ah in marka hore qofka yani qof safar ka yimaaday uu yahay safar ka imaatay ama qof safar ka yimaaday la kulantay ama qof xaaladii cudurka laga helay la kulantay automatically taas waxay calaamad u tahay in cudurkii aad qabto sababtoo ah xaaladda ama xaddiga faafitaan ee cudurka waa mid xad dhaaf ah oo ay fursadu qofku ku qaadi karayeen ay aad u sareyso markaas maadaama ay sidaas tahay yani calaamadaha ugu muhiimsan kuwaas ka mid ah ka bulsho ahaan marka anaga maxaan ka qaban karnaa oo maxaan ka sameyn karnaa in xaaladan cudurkan yani inta uu jiro ay tahay laba xaaladood ba dunida hadda ay sameynayaan waxay yiraahdaan guud ahaan boqolkiiba 50 waxay gacanta ugu jirtaa ka hortag cudurkan bulshooyinka iyo dawladahooda ay gacanta ugu jiraan boqolkiiba 50 ka soo harayna waa yani caafimaad iyo dawooyin iyo wax la raadiyo iyo dhakhaatiir iyo isbitaal iyo waxaas ay noqonaysaa marka anaga boqolkiiba 50 kaas gacanteena ku jirto sideen uga faa'iideyn karnaa oo bulshadeeni aan u wada gaarsiin karnaa yani laba xaaladood ama laba wada ayaa la mari karaa ka hortaga cudurka loo mari karayaa qaybta koowaad waa shakhsiyadaada wax khuseeyo way adiga ka shakhsi ahaan nadaafadaada haday tahay farahaaga oo si joogto ah u meerta haday tahay hadii maxaan ku yiraahdaa dharkaaga aad magaalada la aadi lahayd guriga intaad joogto aad kontaroosho ama dhagitaankiisa aad badis ay tahay hadii aad xirato maaskiga ama afka waxyaabaha lagu xirto meelaha bulshada marka aadaysa aad xirato waxyaabahaas oo dhan waxa way waa wax shakhsiyadaada adiga ay ku khuseeyo way personally kugu xiran ayna waajib tahay qof kasta in wadadaas uu maro qaybta labaad waa qayb bulsho oo maxaan ku yiraahdaa isdhaxgalka in la yareeyo way tusaale ahaan hadii adiga aad yani awal markii hore markaad afurto ama xilliyada qaar aad aadi jirtay fadhi ku dirir xilligiisa waa la soo dhaafay inta xilligan lagu jiro ama cudurkan uu jiro gaar ahaan bisha May wadankeen waxaan u baahanahay qof kasta fakaanama in la yiri waad xanuunsan tahay oo isbitaalka ma soo bixaysid qof la dhahay oo kale inuu gurigiisa joogo uu ku ekaado inta uu ku ekaan karayo qofka aan gurigiisa ku ekaan karin inta uu iskontarooli karayo oo dadka kale iska kontarooli karayo tusaale ahaan inaadan qofna gacan qaadin inaad qofna salaamin way waa laga yaabaa in dadka ay ku fahmi waayaan ay ku dhaxaan wixii dunida laga sheegayay maad aamintay balse xaalad maadaama ay xaalad adag ay tahay inta ay dhibaato kale ka sii weyn mafsado kale ay dhici lahayd waxa wanaagsan in qofka ku xumaado oo aadan salaamin gacan qaadka waxyaabaha ugu horeeyo oo ugu muhiimsan cudurkan uu ku faafay ayuu kamid yahay sababtoo ah يعني wuxuu u baahan yahay qofka bani aadamka si cudurkaas uu u qaado in afkiisa ama sankiisa ama indhihiisa meel kamid ah cudurkaas xaaladaas ama viruskaas uu gaaro taasna waxa sahlayo gacmahaaga sahlayo marka gacmaheeni kow inaan dhagitaankooda badino in yani salaantaas isgaanqaadkaas aan joojino xitaa haday tahay guriga dadka kula joogo ha gaanqaadin ha salaamin yani qof kasta waxa fiican inuu inta meeshiis uu ku ekaan karayo uu ku ekaado dadka gaar ahaan da'dooda ay 60 ka koreyso dawladaha qaar waxay dhaheen way mamnuuceen batatan kama soo bixi karaan bay dhaheen guryahoodi kama soo bixi karaan sababta saal loo yeerin waxa waaye waxay u nugul yihiin in xaaladaas ama cudurkaas ay u dhibaateeyo ama ay u dhintaan aba halisteeda meesha ku jirto sidoo kale dadka da'dooda ay ka hooseyso 20 jir
ama wixii ka hooseeyay ayagana waxaa loo sheegay inaysan banaanka soo bixin sababtoo ayaga shaqana lagama rabo. midda labaad waxay sahli karaan ama ay fududeyn karaan faafitaanka cudurka. canuga yar ee dugsiga dhigta ama iskuulka dhigta ama xaafadda ciyaar u aadi jiray isma kontrooli karayo, gacmihiis ma kontrooli karayo, cidda cudurka qabta ma kontrooli karayo. marka maadaama ay sidaas tahay, waalidiinta Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, abayaasha Soomaaliyeed, dhammaanteen waxa mas'uuliyad inaga saaran tahay in xilligan inta lagu jiro caruurteeni aan dhahno aan ku qasabno inay guriga joogaan. haddii ay guriga joogi waayaan, halista ay cudur banaanka ka keenaan oo guriga keenaan aad ayay u badan tahay oo u sareysa. haddii tusaale ahaan aad maqaayi saarnayd oo maqaayi ku cuntayn jirtay, fadlan aadan ka maarmaynin in maqaayid inaad tagto, cuntadaadi waxaad samayn kartaa, waa soo qaadan kartaa, gurigaada la imaan kartaa, cuntadaada halkaas ayaad ku cuni kartaa, gurigaada ku joogi kartaa. arrimahaas dhan waxay fududeynayaan in ka hortaga cudurkan oo mas'uuliyadda caalamiga, mas'uuliyad bani aadamnimo waay, ma ahan wax mas'uuliyad ama qof shakhsi ah saaran ama dad muslim ah keligood saaran tahay ama wadan gaar ah saaran tahay. waa mushkila caalamiya oo guud oo dad bani aadamka oo dhan u taalo waay. marka arrinta guud ay tahayna waxaa waay qof kasta waxaa fiican maxaa kaaga aadan, adiga maxaad haysataa oo gacantaada ku jiro ama jeebkaada ku jiro ama aqligaada ku jiro oo samayn kartaa. waxyaaba aan samayn karno waa wacyigaas bulshadeed oo bulshada ay tahay in xaaladaas cudurkaas lagu yareeyo ay tahay inaan samayno. haddii ay dhacdo ama aad masaajid aado ama yani janaaze ay dhacdo, waxaa fiican intaa bataatan in xilliyadaas sidoo kale qofku iskontaroolo, isxadido. weliba xilligan cudurkan intuu jiro waxaa fiican janaazooyinka in si gaar ah dadka culimada inta laga wareysto loo dugto oo dad badan, tirada badan aan lagu aadin. sida hadda sawirada qaar shalay lasoo dhigayo social media lasoo dhigayo oo meel janaaze ah qof dhintay oo intaasoo dad isugu yimaadeen, yani xaalad kasta wax kasta ay ka dhalan karaan. waxay noqonaysaa sidaas haddaan samayno in anaga gacanteeni aan halaag iyo mushkilo badan oo aan ku soo jiidanayno. maxay tahay ka hortagadan? maxay faa'iido noo kordhinayaan inaan ka hortag samayno ama kala fogaano ama caafimaadka shakhsiga aan yani xooga saarno? maxay inoo kordhinaysaa? waxaa la yiraahdaa yani 3 xaaladood bay kordhinaysaa. kow, waxaa yaraanaya dadka cudurkan gaari lahaa, yani dad yar oo yani tiro badan intuu gaaro ayay yaraynaysaa. midda labaad, cudur sidaha wax loo yaqaano pathogenka cumrigiisa ayay yaraynaysaa. tusaalahan meelaha surface-ka cudurkan haddii meel uu qabsado, laga yaaba in 2 maalmood 3 maalmood asbuuc kaliya uu joogi lahaa kadibna iska dhiman lahaa. laga yaaba in gacmahaaga haddii 20 jeermis ama 20 virus saarnaa markaad saabuun ku dhaqdo uu dhiman lahaa. laakiin haddii saas la samaynin, waxaa cumrigiisa dheeraanayo, cudurkaas ayaa waqtigiisa dheeraanayo. faa'iidada labaad way. faa'iidada saddexaad oo dadaaladan ka hortagan bulshadeed laga heli karo waxay tahay, waxaa fursad la siinayaa, jaanis la siinayaa dadka dhakhaatiirta ah ama cilmi baarayaasha dunida inay daawo ama cudurkan ama vaccine talaal ah loo helo bay sahlaysa. haddii loo baahan yahay sanad, haddii loo baahan yahay 2 sano, intay rabto ha qaadato in cudurkan talaal loo helo ay waxay sahlaysaa jaaniskeeda in dhakhaatiirtaas ay helaan. balse haddii dadaalkaas bulshadeed aan la muujin, qof kasta mas'uuliyad iska saarin, halkii 20,000 ama 100 ama 10,000 ama 5,000 ay kaa geeriyoon lahayd, waxaa suurtagal ah inay kaa geeriyoodaan 100,000 ama 1 milyan isku dhow inay naga geeriyoodaan ama dunida dhan ka geeriyaan, sida haddaba taagan baa suurtagal ah. marka ka hortaga ama yani xaaladahaas aan sheegnay in bulshada iskontaroosho, ismaamusho, arrintaas si jiddi ah qof kasta jiddi ah u qaato, waxyaabahaas baa laga heli karayaa. xaaladda ilaa goormay sii jiri kartaa marka? xaaladan hadda lagu jiro waxaan ognahay yani dhamaadkii bishii sanadkii hore December bay soo bilaabatay, bishii sanaada la sii marooya. ilaa goormay sii socon kartaa? allahu aalam, cid og ma lahan. ilaa laga helo يعني talaal caalami ah oo xaaladan yani lagu xalin karo la helo, ama ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga kor qaado, cid waqtigeeda xadidi karta ma lahan. marka qof kasta, shacab kasta, bulsho kasta, qoys kasta mas'uuliyad waxay ka saaran tahay, adigu maxaa kaaga aadan baa samayn kartaa. dowladda waa teeda kale, waxay dadaal muujinayso sideeda ay u muujinaysaa, laakiin anaga hadda xaaladda aan ku jirno oo aad u liidato, yani cidna eed ma saari karno. yani shacab ahaan, dal ahaan, dowlad ahaan waxaan kasoo jeednaa meel dalkeedii, dadkeedii, adeegyadeedii dhammaantooda ay liitaan. marka keliya waxaan adeegyadan waxaan dhan aan ku bedelan karnaba waxay tahay
in qof kasta juhdi iyo dadaalkiisa uu bixiyo fariintana inta uu gaarsiin karayo oo dad uu gaarsiiyo taas baa ugu muhiimsan gabagabadii waxa ugu muhiimsan in adiga aadan noqon buundadii cudurkan uu ku gudbi lahaa iyo in dadkaas macluumaadkaas aan isla wadaagnay ama meel kasta aad ka helayso macluumaadkaas aan wada gaarsiino oo qof kasta juhdigaas iyo dadaalkiisa uu bixiyo marka yani tusaale ahaan yani waxay dhahaan yani Camar bin Caas baa wuxuu dhahay yani cudurka ama daacuunka wuxuu la mid yahay sida dabka oo kaleeto way idinkana waxa u tihiin xaabo oo marka xaabada dabka la saaro way sii shidmaysaa oo dabka wuxuu gaarayaa yani aad ayuu u sii shidmayaa idinka kala taga si dabkaas uu u damo marka viruskaas wuxuu la mid yahay dabkaas aan kala tagno aan kulanka iyo isumaatanka yarayno xilli faraaga ah yani oo waqti qofku wax badan uu ka faa'iideysan karo ayaa halkaas kaaga dhalan karo xilli aad ku nasan karto ayaa kaaga dhalan karo xilli ummadaada iyo bulshadaada iyo dadkaada aad ku badbaadin karto ayaa halkaas yani ka heli karta marka yani warka ma sii dheeraynaya intaas aan kusoo koobaya haddii ay jiraan dad comment garaynayo ama dad su'aalo qabo dad badan oo dhakhaatiira ku jiro oo caafimaadka wax badan ka yaqaano waxaan u jeedaa Bishaar Samadoon iyo dad kale marka soo dhawaada halkaas aan kusoo koobaya ereyday intaas ay ku koobayiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo raalli ah walaal macaan anaga hadda kolley waxaan ciyaaraynay qof kasta ama wax gacanteena ku jiro maxay yihiin baan isweydiinaynay waana talo fiican arrinta ah in routiska wacyigelinta aan wax ka bedelno dad caafimaadka iyo wax ka bartay ku takhasuseen way nagu jiraan anaga aad u mahadsantahay jazakallahu khayran Said Bishaar Samadoon waxa way dhanka dhaqanka waxyaabaha anigana qayb ka sheegay walaalka yani hadlay sidoo kale Axmedna uu taabtay bay qayb ka tahay yani dhaqanka hadda culimadii oo leh masaajidii lama xiri karo yani guriyaashi ilaahay lama baneen karo lama faarujin karo ay leeyihiin yani cid kasta fikirkeeda iyo dood meeshay ka eegto waxa way gaarkeeda ay leedahay laakiin arrinta taagana waxay tahay yani dhibaato weyn oo geeri in nolol u dhaxaysta in hortaagan yani maxaan ka yeelnaa wayn inoo dhaxaysa hadii laga wada tashan waayo qof kastana yani wadada saxda ah uu abaari waayo dhibteeda wayna wada saameynaysaa mabaadi'da asaasiga ah ama daruuriyaadul khamsa oo diintu waxa kamid ah yani xifd nafs yani nafta in la ilaaliyo marka yani in qof kasta intuu karo yani uu sameeyo uu dadaalkaas uu muujiyo yani dhaqanka daban yani wax hal maalin ama laba maalin ama bil ama laba bil ku sameysmaayo ma ahan wax goorta yani hooyadaada ku dhashay ku soo barbaarisay iskuul lagu geeyay jaamacad soo ka soo baxday ama yani noloshaada oo dhan wax soo dhismayay waay yani dhaqamada caafimaadka ayaa hadda ugu muhiimsan qofka in dhaqankii iyo wacyiga caafimaadka sida aan sheegnay aan xoog saarno oo qofka caafimaadkiisa shakhsiga ah yani uu in badan yani uu dhiso iyo kala fogaanshahaasi bulshadeedna in meesha la saaro way adag tahay marar qaar qofka inaad dhahdo yani qof 20 sano 30 sano yani musaafaxa iyo salaan iyo waxaas idinka dhaxay maanta hadaad salaami weyso yani in ha iga xanaagina waxaan u arag xaalad yani aniga iyo adiga ee bulshadeena caafimaad u ah warag inaad dhahdo waxa way yani sometimes way adag tahay laakiin daawada ba iyadoo qaraar ba aad ku qasbanaanaysaa marar qaar inaad laqdo yani inta hadda sababtoo anaga waxa inaga maqan yani enforcement factor ma haysano dawlad dadkii ku qasbi karto maanta ani hadda idin la hadlaayo gurigan ku jira kama bixi karayo haddaan bax ganaaxa ay horyaalo yani dawladana u sabab ah yani wax oo aqligayga ama go'aankayga anigu aan ku gaaray ma ahan dadkana way ila mid yihiin yani maalmaha soo socdana sidaas way yani ku dhawaad 45 maalmood baa shaqadii lagu yiri ha soo aadin gurigaada joog guriga ka soo shaqay oo wixii lagaaga baahdo qaab email ah ku soo qabo saasaan sameeyaa go'aan dawladda iyo hay'adaheeda ay gaareen way marka anaga hadda doodeeda ugu muhiimsan qodobka wuxuu ahaa anaga maxaa gacanteena ku jiro oo aan sameyn karnaa yani aniga hooyaday aabahay walaalahay yani baadi inta joogto waxa mas'uuliyadda saaran tahay inta qofka aan wici karo intaan telefoon ka waco aan dhaho walaal adeer abti dhibaato guud baa dunida ka jirto saas waaye meelahaas ha tagin sidaas ha sameynin caruurta inay meelaha ku soo ciyaaraan yaan loo fasixin haddii saas la sameeyo waxaan isleeyahay yani xaddiga cudurkan uu ku faafi karo wuu yaraanaya dadkeen in aqligoodii wacyigooda kor u soo kaco aad ayuu u kordhaya wana sii wadi doona haddii ilaahay yiraahdo qodobka aniga mar kale aan ku celinayo wuxuu yahay oo aan xoog saarayo gobolkaada ama xaafadaada ama magaaladaada inaadan ka tagin isku day yani dunida hadda maanta waxay noqotay aan la wada soconaa cudur yani magaalo yar oo kamid ah China ilaa bariga Afrika inuu nagu ciriiriyo waxay tusaysaa in hal tuulo dunida isu bedeshay xilligii la dhihi jiray aniga xuraan ahay waxaan rabaan sameeynaya idina shaqo iguma lahan dhihi jirtay waa la soo dhaafay
wax kasta kaliya waxaa xur tahay inta aadan qofka kale dhib u geysan, waxaad xur tahay intaadan ka qayb qaadan faafinta cudurka, waxaad xur tahay intaad ilaalinayso muwaadinka Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo fayo-qabkiisa intaad ilaalinayso ayaad xur tahay. in qodobadaasi aan xoog sii saarno, gaar ahaan caruurtii yareyd oo 20 inta ka hooseysayna aanan u ogolaanin inay meelihii caadiga ahaa oo public ay aadaan. dadka waaweyn ama cudurada oo chronic ah sida sokorta iyo dhiigkarka iyo waxyaabaha kale kelyaha iyo waxaas qabaana sidoo kale daryeel gaar ah la siiyo oo si gaar ah loo sameeyo. yani ma lihin magaalo kasta ha loo sameeyo meel dadka lagu yani isolate gareeyo lagu hayo. yani way adag tahay waxaas dhan way adag tahay, laakiin qofka nafsidiisa asiga wuu sameyn karaya haddii aad safar ka timaaday inaad si gaar ah meel gaar ah muddo aad yani inta isku hayn karto isku hayso. haddii qof safar ka imaaday uu ku imaado aad dhaxdo walaalow ha imaanin mar kale is arkayna. waxyaabahaas dhan waxay ka mid yihiin yani waxyaabaha tallaabooyinka aan qaadi karno. intaasaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni. aada u mahadsantihiin dadka kasoo qayb galay, gaar ahaan dadka fariinta sii faafin doono oo dadka kale sii gaarsiin doono, juhdiga sii faafin doono. jazaakum allahu khayran. aada u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.